waxaan rabaa arrinta sool laascaano dhibaatada ka taagan hadda ka horna halkanna waa uga hadalnay meelo kaloo fara badanna waa uga hadalnay raalli kama ahin kuma faraxsanin dhiigga daadanaya sideedaba ma raacsanin dhiig qof Soomaali ah inuu daato isbitaalka laascaano nin dhakhtar ah ku dhintay asagoo wax daaweynayo saa u dul taagan dhakhtar naf badbaadinayo ma mudan yahay inuu dhinto muxuu u dhintay dagaalaa jiray kii wixii la soo tuuray oo ku dhacay dilayna waa dambiile laakiin maxaa ka sii weyn haddii waxaa la yidhaha qiicu meelaan dab jirin kama baxo dab haddaanu jirin maa qiic la arkayaa ama qaac dheh mayaa la arkayaa haddaanu colaad jirin hoobiyana layskuma tuuro madaaficna layskuma rido marka hore haddaanu dagaal jirin marka asalka madfaca in la tuuraa waa khalad laakiin xalkeen maxaa madfaca loo tuura maahane xalkeena yaan la dagaalamin waay war yaan la dagaalamin walaalayaal bedelka dagaalku waa maxay aan iswarsanno ha la isla hadlo wax kasta aan qabo tabasho kasta aan qabo carag kasta aan qabo laakiin aan wada hadalno aan isu nimaado laakiin wada hadalkii haddii aan hadda mar horaa dhinac kasta wuxuu yidhi xabadda annaga waa joojinay laakiin haddana markii saas lagu dhawaaq kadib xabaddu waa sii socotay marka soomaha lima taquuluuna maa laa tafcaluun waxa aan sheegayna iyo waxaan ficillayna oo kala duwan soomaha marka arrintaasi cuqaasha iyo odayaasha iyo dadka deegaanka iyo maxaan ku rahdaa dowladda nidaamka meesha muxuu ahay intaba waa kala hadal war isma maquuni karno xoog dowlad isuguma noqon karno iskuma sii haysa karno iskuma dul joogi karno aan isla hadalno raalli ahaansho aan iskula jirno raalli ahaansho aan wax iskula doonanno raalli ahaansho aan haddaan kala baxaynana aan ku kala baxno laakiin xabad ma aha Somaliland dalka Soomaaliya qayb ka mida waaye annagu aan qabnaa kala go'a ma aaminsanin kuma raacsanin laakiin haddana madaafiic intaan u rakibanno midnimada xoog idinku soo raacsiinaynaa ma lihin waana waxa aan 30 sano u kala joogno maalin walba meel aan leenahay walaalayaal saan ma aha waxa aad tabanaysaa waa gar aan ka wada hadalno shalay dhicin soo ma celin karnay biri mid kale inaanay dhicin aan ka hadalno waxa aan u leenahay banaanka uga joogno oo aan u ilaalinayno oo aan dadka noloshooda inay hagaagto aan rabno oo aan uga talino aan rabno oo waaye laana waa politics dadku waa Soomaali waa dad sharaf leh dad karaamo leh isla dhashay ehel ah isla degan xaqana isla degan intana isla degan laakiin siyaasadii war siyaasadii aan isku nimaado aan ka wada hadalno aan hagaajina joog sidoo kale intaas u baa yaa ku dabaqmays wax la ascaana ka jirana hal la wada hadlo waxa lagu kala duwan yahay hal laga wada hadlo meel hal isu raaco yaan leenahay annaga dowladda federaalka ee Soomaaliya ee halkan ka jirto oo Soomaaliya oo dhan ay wada joogto ay ku midaysan tahay midnimada dalkan rabna waxaan qirayaa dad badan oo Soomaaliyeed oo waqooyiga Soomaaliya ka soo jeedahay inay qiimo aad iyo aad u badan ay u bixiyaan midnimada qiimo zaa'ida oo ay u bixiyaan midnimada qaarkood u dhinteen qaarkood xaasaskoodii caruurtoodii uga soo go'een qaarkood maxaan ku raadaay daltabyada haysa daraadeed ay maxaan ku raadaay ay ku noqotay xanuun badan deegaanadii iyo meelihii ay maxay ku dhasheen dadkoodii ehelkoodii iyo joogay waalidkood walaalood ay maxay ku midnimada daraadeed dad aad iyo aad u qiimo badan ayaa guud ahaan waqooyi isku jirta markaan ka soo qaadno yaa jooga dowladda Soomaaliya ka tirsan deegaankana degan ama ku ganacsada ama noloshoodii ku haysta oo dugsanaya calanka buluuga ah ee muxuu ahay taagan xurmo gaara ay leeyihiin waa aaminsanahay kuwa xagga jirana kuwaas inay la mid yihiin laakiin siyaasaddu ay darbiye yar yar ku ooday ayadana waa ka imaanayna ayaguna meesha ay joogaan nabad iyo wanaag ayaan ugu rajaynaynaaye colaad uma rabno laakiin maamulka waqooyiga Soomaaliya ka jira waxaan leenahay dadka reer Sool hala dhageysto ala hadlo hala dhageysto midnimada rabnaa haday yiraahdeen adiguba goon istaagan rabaa tiro laguma culaadiyo waayo midnimada rabaa qofna laguma culaadi karo walaalka midnimada rabana waxaan u sheegaynaa midnimada nabadan ku rabnaa heshiisaan ku rabnaa
dhiig inaan daadino ma rabno dhiig inuu ku daato ma rabno kulamaa dhiig daato xanuunka iyo xusuusta murugada leh iyaa sii badanaysa tii 30 sano ka hor ahayd 40 sano ka hor daaweyn laana ay mid kale inaan ku sii darnaayo xigmad kuma jirto midnimada nabadaan ku rabnaa midnimadaan rabnaa midnimada ninka ku hadaaqayaan rabnaa laakiin nabadaan ku rabnaa walaalaha reer Soomaaliland iyo dawladda iyo maamulkan waxaan leenahay waa diidnay annagu inaan idinla dirino inaan idin colaadino xataa diplomatically inaan idin colaadino xataa ma ogolin raalli kama ihin si diblomaasiyada xataa inaan u colaadino waqooyiga Soomaaliya raalli kama ihin ama dawladda Soomaaliland laakiin waxaan rabnaa waxay tahay midnimadaan u taagannahay waa rabnaa mana ka tanaasulin waxaan ku bedelaynaa midnimada oo masaalix ah oo nala sii kara ama naloo ballan qaadi karaa ma jirto laakiin nabad iyo wanaag iyo wada hadal aan ku rabnaa ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa in awsaas ay ku agaato waxaan ilaahay ka baryaynaa dadka Soomaaliyeed qulubtooda in ilaahay isku soo jeediyo